بسم الله الرحمن الرحيم أستاذ افتح وكنا وإيدين وذا ترايد مانجر إن waxaan maraynaa Maslow ayaan soo dhameynay waxaan maraynaa M Gregory's theory X and theory Y ninkan wuxuu sheegay laba theory ayuu sheegay theory X iyo theory Y theory X wuxuu aaminsan yahay yani manager theory X wuxuu aaminsan yahay wuxuu dadku u qaadanayaa inay dadku hamigoodu yaryahay hankoodu inuu yaryahay little ambition yani hanka qofka inuu yaryahay ayuu u haystaa dislike work inuu shaqada necban yahay dadkan avoid responsibility waxyaalaha la dul saaray la dhaho waxaan adiga iska leh uu ka fogaanaya I need to be close to control iyo inuu u baahan yahay ninka qofka in la control marka wajida managerka aaminsan qofkan wuxuu ka aaminsan yahay inuu waxba qabanaynin inuu isku joojo inuu isku fadhiyo waxba jecleen shaqada dad waa jira manager saas kuwa autocratic leader ko kale oo miyirka adag waxa u maleynaa in dadku dhan inay wax nacib yihiin marka saas ay u qaadanayaan markaas maanta dhan controlayaan daba taagnaanay theory-na wuxuu assume garanayaa employee inuu jecel yahay shaqadii fiirinayo accept garanayo responsibility self direction as is hagaayo marka ninkan wuxuu leeyahay employee ha loo assume gareeyo inuu shaqadiisa jecel yahay ha loo assume gareeyo the more oo positive kala isticmaalo leeyahay the more employee motivation kooda fiicnaanaya يعني shaqaalihii iyo dhan hadad ku qaadato inay shaqada necab yihiin oo maanta oo dhan ka daba taagnaas control wala fiican waxa wanaagsan in positive ka fiiriso shaqada inay jecel yihiin laakiin aad mid walba meesha ku jilicsan yahay si gaar ah aad u beegsato oo aad inta wax ka siiso ama wax u qabato oo gacanta wax ka saarto oo qanacsiiso ayaa loo baahan okay and Herbeck's two factor theory laba uu sheegay Herbeck ninka motivator ayaa jira iyo hinging factor ayuu yiri motivatorka waxa weeye markii ay shaqaaluhu ayaga kaligood is hagaayaan oo garasho leeyihiin work itself gariisho shaqaynaya responsibility saaraya garad u keenaya wuu qanacsan yahay ugu shaqaalaha hadaad aragto oo dhaqaaqaya howl qabanaya oo faraxsan mar walba oo responsibilities saaraya oo shaqo ka soo baxay waa shaqadiisa ku faraxsan yahay ayuu leeyahay waxba si dawgalnoo leeyahay shaqadiisa ku faraxsan yahay hinging factor-kan wuxuu yiri mid la supervising loo sameeyo maanta dhan la hagaayo walaa imaana ruuxan iyo kadaniyo warni waxaan saamax u yeesh maanta dhan company policy qaldaya markaas aad leedahay policy waa qalad relationship wuxuu isku dayaa in supervisor relationship la sameeyo xiriir la sameeyo oo man saaxiib fasax hoosta ka soo galaya salary baan mushaarka maxaa saamnay ugu yaryahay oo dhibaayaysadniyo qofkaas oo kale wuxuu leeyahay ma qanacsana marka asaga wuxuu ku barbar dhigay sida qofka uu yahay qofka fiir ayuu yiri markaad fiirisid ayaad ogaan doontaa qaabka uu dhaqmaayo iyo wixiisa ka fiiri kadibna meesha uu kaliito ka qabtir shay motivation uu galo shaqaalihi ayuu leeyahay inspect okay the last one waxa weeyaan MC Cleland ninka wuxuu leeyahay dadku saddex qaab ay leeyihiin mid waa the need of achievement oo ayaga sare isku qaadayo succeed inay goal gaaraan goalkii ay dejiyaan hadafkii dejinay dadku waa midkaas mid kale waa the need for power qof need for power waxa weeye qof yani jecel in maanta dhan la direct gareeyo in la hago oo la daba socdo buu doonayaa dadkii marka asaga uu ku dhex jiraa waxaad ka fahmaysaa qofkii wuxuu jecel yahay mar walba inuu leader noqdo hogaamiye inuu noqdo dadku uu socsoconaya dadku wuxuu leeyahay hada waxaas waa qalad waa cidna uma dirin qof kaligiisa xil isaaran soo marka the need for power leeyahay iyo qof mar walba hadafkiiniyo anta waa khaladnayniyo meeshaas waxa ka khaldanniyo dhaha the need for affiliation raadeno ninkan waa friendly interpersonal dadka inuu saaxiibo uu hoosta ka galo supervisorka mar walba uu salaamaya uu ku imaanaya waa ay leeyihiin marka nin walba marka wuxuu leeyahay in la direct gareeyo kan in hore loo wado oo shaqada achievementiga loola sameeyo oo la daba socdo
kana in loo ogolaado inuu wax baawar galeeyo uu kontaroolo oo agenda loo dejiyo sidaa oo mar walba wuxuu u baahan yahay la yiri ninkan need for powerka dadka inuu control jecel wuxuu u baahan yahay la yiri tartan dhinaca kale laga istaaga markaa ani aaday ninkii waxaan sameeyay markaas uu dardar gelinaya uu dhaqaaqaya uu soconaya majeeda mid kalena mar walba in la saaxiibo jecel waa la saaxiibeysa oo sheekeynaysa oo shaqo isla qabanaysa oo wada sheekeysanaysa waxaan u maleeyaa casharka inaad ka bogateen su'aalo far badan oo kasoo bixi kara su'aalaha la isweydiin kara casharkan aad muhiim u yahay shaqaalahaaga hadaad manager sax tahay waxaad kula dhaqmaysaa sida iyaga yihiin oo lama dhaqmaysa sida adiga tahay looma baahno shaqaalaha inaad u eegto hal dhinac shaqaalahaaga different way ka fiiri si ay iyaguna company toward goal hadafkii ay u gaarsiiyaan ayaa loo baahan yahay seminaarkeeni inoo socday the right manager halka ayaan kusoo gabagabeynayaa wixii su'aalaha iyo wixii kale oo aad dheeraad u baahantiin oo ay soo weydiin kartiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.